عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها قيمي بدن كسر وهذا كوسو مالي ميديا والله بدأ بشا جماد الأولى سنة كنا فربغل فرتن يتضب تاريخ الهجرية وفي نما خميس جمعة يسوق ليس وانا سدح لباتن كبشا طبنات سنة كلبا كن شر لباتن قد بدأ هو وين برنامج كان في نما وحا كمذا مدحوينها ذلك مريكا كوحا كسو يري ورآ لوغو فرحي قدها فلسطين كدي مركي وشاقي إن وكشقينيو سو دينتا مروان برغوتي محبوس كأقوم مهم سددك كحيران رأي فلسطين لنا شاقي إنو يهينين كهرد أدقمو يحيى السنوار معلومات عجيبة وأرنتها كسابسا أي نسلئي دونا قضبضا سيدو كلي برنامج كاتكم مغرب دونتينا وحا كمدا وزيرك ganacsiga Israel Bezalel Smotrich ayaa maanta si daran u aflagaaday dalka Sacuudiga waxa uu ku sheegayeen geel raacataan adduunka ka warqabin arinta ayaan isla eegi doonaa waxa uu ku keenay in Bezalel uu u gudbo Sacuudiga waagii hore hadii uu reer Gaza iyo Falastiin u gafi jiray ama u dhibaateyn jiray hadda arinta gudaha Sacuudiga ay u gudubtay warbaahinta caalamka ayaa arinta wax uga qorayso qodobada sidoo kale aan isla eegi doonayna waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ayaa doqonnimo iyo axmaqnimo aad u liidato ku sheegay maanta go'aanka baarlamaanka Israa'iil ay ku codeeyeen ee ahaa in ay la wareegayaan daanta galbeed oo ay ku darayaan Israa'iil dhulka ay haysato sheeko yaab la arinta ku saabsan iyo Trump oo sheegay inuu san arinta aqbalaynin oo uu yiri inay tahay mid gabi ahaanba burburinayso xiriirka Israa'iil iyo Mareykanka sheekada meel adag ay maraysaa maxay muhiim u tahay daanta galbeed oo ay baarlamaanka Israa'iil ugu codeeyeen inay u qaataan daanta galbeed meeshan arrin weyn baa ku jirto oo isla eegi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamid ah gudaha Israa'iil waxa ka furantay dood weyn kadib markii haweeney macallimadka ah mid kamid ah jaamacadaha ku yaala gudaha Israa'iil ay qortay qoraal ka caraysiyay qaar badan oo gudaha Israa'iil ku nool siyaasiyiin ah warbaahintii jaamacadina aad u faaloonayso waxa ay tiri waxa la joogaa dhamaadkii Israa'iil maxay ku keentay sheeko yaab leh ayay arintaasi taawatay oo ay kaga hadashay waanu isla eegi doonaa iyana wargelin muhiim ah soo dhawaada markale magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa Kowso Mali Media aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo oo ay tahayna su'aashii ugu badnayd ee la weydiiyay maanta si deynta Marwan Barghouti waxa uu sheegay Marwan Barghouti in uu riixayo oo uu xoog saarayo sidii loo soo deyn lahaa dhowr jeer baa la iga codsaday buu yiri gabar wariya ayaa su'aal ka weydiisay in maxaabiista Falastiin loo soo deynayo in lagu soo darayo Marwan Barghouti oo ay horay kooxaha iska caabinta reer Falastiin dhinacyada kala duwan oo dhan ay u codsadeen waxa uu yiri madaxweyne Trump waxaan xoog saarayaa sidii loo soo deyn lahaa waana ka shaqeynayaa inaan riixo oo aan aad uga shaqeeyo soo deynta Marwan Barghouti haddaba waa kuma Marwan Barghouti hore ayaan u sheegnay waa maxbuuska ugu muhiimsan ama la haystayaasha ugu muhiimsan ee reer Falastiin laga haysto ee ku jira xabsiyada Israa'iil waa maxbuus wiilkiisa oo isbuuc ka hor uu la hadlay warbaahinta sheegana abiis in lagu xadgudbay kadib markii bishii hore muuqaal warbaahinta iyo baraha bulshada qabsaday aad loo faafiyay kaas oo la arkayay wasiirka xagjirka Israa'iil Ben Gvir wasiirka amniga loogu yeero oo intuu xabsiga gudaha Israa'iil ugu tagay Marwan Barghouti oo muddo xirnaa oo nin odaya noqday oo Israa'iil muddo iska haysatay saddex xabsi daa'imno ugu xukuman waxa uu ugu tagay xabsiga dhaxays waxa la arkay Marwan Barghouti oo dacay ka muuqato oo rafaad uu ka muuqdo oo la dhibaateeyay oo la ihaanaysanayo muuqaalkii dad badan ayuu ka caraysiyay hadal hayn badan ayuu dhaliyay cadaalad darrada iyo xadgudubka maxaabiista Israa'iil ama dadka ay haysato lagula kaca ayuu muujiyay inta wixii ka dambeeyay dood badan ayaa dhalatay oo ah soo deynta Marwan Barghouti muxuu muhiim u yahay horta ninkan waa nin hadda luqadda Israa'iil aad u bartay farsamadooda aad u yaqaan dhaqankooda fahamsan wuxuu taagan yahay Falastiiniyiinta marka laga hadlayo qaar badan wuxuu u joogaa booskii Yahya Sinwar waxaana la aaminsan yahay gudaha Falastiin inuu yahay ninka Falastiin isku hayn karo waayo isaga fataxu ka tirsan yahay siyaasad ahaan oo xisbi ahaan uu ka tirsanaa waa ninka la aaminsan yahay inuu bedeli karo Mahmoud Abbas oo fataxa waa isku xisbi yihiin Falastiiniyiinta daanta galbeed iyo kuwa Gaza kulligood
waa ninka haddii loo doorto maanta Falastiin inuu hogaamiyo kulligood ay wada ogolaanayaan waayo kooxaha iska caabinta mar walba oo maxaabiis la kala wareegsanayo Israa'iil iyo Falastiin waxay ku soo daraan liiska koowaad Marwan Barghouti Israa'iilna waa ninka ay ugu diidmo badan tahay inay sii deyso sababtoo ah waa nin wax badan og waa nin Falastiin isku hayn karo waa nin ka shaqeyn kara xalka labada dawladood gaar ahaan inay Falastiin dawlad noqoto waa nin ka shaqeyn karo waa nin siyaasadii fahamsan waa nin military fahamsan waa nin siyaasad ahaan diyaarsan waa ninkii ka shaqeeyay intifaadadii labaad ee lagu qaaday Israa'iil kacdoonkii labaad ee Israa'iil ka dhanka ah waa nin qaaday waa nin dhinacyada Falastiiniyiinta oo dhan ay isku mid u yihiin oo qolo walba ay rabto in ninkaasi la soo daayo siyaasadiisana ay ku qanacsan tahay ee qiimeyn la sameeyay ama tartan Maxamuud Cabbaas lala galay waxa ka guuleystay Marwan Barghouti oo xiran qiimeyn la sameeyay haddii la dhamaanto Falastiin yaa madaxweyne ka noqonayo kulli waxay isku raacsan Marwan Barghouti Israa'iil waxa leeyahay waxay kaga walwal badan tahay Maxamuud Cabbaas oo fadhiyo kursiga Marwan Barghouti oo xiran ما أمينيش إن لا ضمانته محمود عباس قاضي مروان برغوثي سودا وحي كجع شاء إنه محمود عباس كنا هذا مروان برغوثي إنه ماشي كل حد يبتوضه وكل رفاضه وكل انتو تاس أي كجع شاء يا لليه marka hadalka Donald Trump ka soo yeeray waa hadal la sheegay inuu macno weyn u sameeyay Falastiiniyiinta laakiin miyuu ka dabayn doonaa Israa'iil miyay ka aqbali doontaa waa su'aasha dood badan u baahan qiimeyn badan u baahan lana arki doonaa meeshay ku soo dhamaato waaya saaxiibada qiimiga lahow intaynu gudbin qodobka xiga barnaamijka maanta markale Israa'iil waxay si daran u duqaysay gudaha Lubnaan iyadoo la arkay qaybo badan oo ku taala koonfurta Lubnaan oo aad u guubanayso Israa'iil waxaa la sheegay in ay hadda u soo jeesatay baabi'inta qaybo badan oo kamid ah hubka Hizbullah waxay mar kale sheegtay maanta inay gubtay bangiyo ama kaydad hubka nuclear-ka aan idhaahdo nuclear adina hubka Hizbullah ay ku dagaalantay gantaaladeeda waxayna sheegtay Israa'iil inay wadi doonto duqeynta ka dhanka Lubnaan gaar ahaan deegaanada Hizbullah ay gacanta ku hayso ilaa inta ay Hizbullah shacab ka dhigayso oo ay baabi'inayso Hizbullah ilaa hadda waxa iskaga socota weeraray duqeyn aan kala go' lahayn umana muuqato mid awood ay ku dagaalanta leh ama dagaalamayso halka kooxaha kale iyada laftirkeeda xataa Hizbullah marka sidaan kale loo weeraro way ka jawaabi jirtay xuutiyiinta marka la weeraro waxaan shaki ku jiray maalmo kadib in Israa'iil darbaha ay la kulanto Hizbullah waxa la leeyahay waxa hadda muuqata in gabalkeedii uu dhacay maalmaheedina ay soo afjarmayaan weerarkii u dambeeyay maanta wuxuu ahaa mid si daran gudaha Lubnaan looga dareemay gaar ahaan koonfurta Israa'iil waxa ay wadaa siyaasadda inaysan hadda ku degdegin gudaha inay u gasho Lubnaan laakiin la sheegay aakhirka in qorsheedu uu yahay in Lubnaan ay dhulka u gasho laakiin marka hore ay ka baabiinayso dhanka ay hawada ay ka duqaynayso si ay u burburiso kaydadkii ugu dambeeyay Hizbullah ay haysatay ama ay haysato aynu u gudubno qodobka xiga barnaamijka madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka JD Vance ayaa la sheegay maanta inuu si weyn uga carooday talaabo ay qaadeen baarlamaanka Israa'iil kaseed muxuu yahay baarlamaanka Israa'iil talaabada ay qaadeen waxay u codeeyeen maanta si buuxda inay ula wareegaan daanta galbeed dhulka Falastiiniyiinta Israa'iil muddo haysatay in lagu daro Israa'iil magaalooyinkeeda iyo deegaanadooda hadda iyaga ay xoog ku yeesheen in lagu daro sida Tel Aviv oo kale inay noqoto ay u codeeyeen baarlamaankii si buuxda isku raaceen codeyntii macnaheedu waxa ay tahay dhinacaas hadda waxa hartay oo kaliya talaabo inay qaadaan laakiin daanta galbeed waxay ku dareen Israa'iil baarlamaanka marka laga hadlay inkastoo wali talaabadii loo bari lahaa si loo dhaqangelin aan arinta la hirgelin arintaasi gudaha dalalka Carabta aad baa looga cambaaray jaamacadda Carabta waxay sheegtay inay tahay mid aan la aqbali karin Masar waa ay ka soo hadashay inkastoo Masar laftirkeeda shaki iyo cugdad badan dadka Falastiiniyiintu ay hadda ka qabaan kadib wararkii soo baxay isbuucan dawladaha muslimiinta ee isku taga ururka islaamka ayaa iyagana aad u cambaaray madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay JD Vance inay tahay talaabo axmaqnimo ah oo dabaalnimo ah in baarlamaanka Israa'iil xilligan uu codeeyo inay daanta galbeed la wareegaan dadka arrimahan ka faalooda waxay ku sheegeen inay tahay fudeed iyo degdeg Israa'iil ay sameysay talaabadan inay qaaday xilli
ay Israa'iil ku habboonayn inay tallaabo noocan oo kala ay u dhaqaaqdo oo caalamka siyaasad ahaan Israa'iil lagu diidan yahay tallaabooyinka degdega dhulka Falastiin maalinba maalinta ka dambaysa ay ku sii siqayso oo ay xoog ku qabsanayso haddaba Trump wuxuu ka yiri arrintaas madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay tallaabadaas inaysan Mareykanka aqbali doonin noqon doontana tallaabo xumayso xiriirka Mareykanka ee Israa'iil waxa uu sheegay in dalalka Carabta uu u ballan qaaday inuusan isaga raalli uga noqon doonin in Israa'iil daanta galbeed ay la wareegto sidaa darteed wuxuu yiri anagoo qiimeynayna saaxiibadeena Carbeed danaha Falastiiniyiinta iyo guud ahaan danta gobolka tani ma aha tallaabo Israa'iil aan ku raacsanahay mana ahan buu yiri tallaabaan aqbali doono mana ka yeeli doona buu yiri haddii Israa'iil ay ku dhaqaaqdo tallaabadaasi waxa ay noqon doontaa buu yiri mid aad u hoos ugu dhigto aadna u baabi'iso xiriirka Israa'iil iyo Mareykanka laakiin miyaa la aamini karaa hadalka Donald Trump iyo Mareykanka ka soo yeerayo ee ku saabsan in xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil uu ku xumaanayo tallaabadan ay qaadeen baarlamaanka Israa'iil maanta khibrada waxa ay leeyihiin waa laga yaabaa maalmaha ugu horeeya xilliyada ugu horeeyo in Mareykanka uu diido laakiin Israa'iil waxa ay haysataa kalsooni ah siyaasad walba oo ay la timaado in Mareykanka xiriirkooda aysan baabi'inaynin laakiin laga yaabaa inay ruuxdo ama ay gilgisho maalmo iyo waqtiyo kooban laakiin waxaan shaki ku jirin tallaabada maanta baarlamaanka Israa'iil uu qaaday in indhaha caalamka ay Israa'iil ku soo jeedinaysa mar kale oo hore bulshada caalamka siyaasadda Israa'iil Gaza uga soo horjeeday waxa maanta sidoo kale soo baxay war ay soo saartay Norway kaasoo ay gudbinaysa dacwo ka dhan Israa'iil kadib markii ay sheegtay kaalmada bini'aadanimada ee galaysa Gaza inay aad u liidato sidaa darteed ay dacwo kale in xuquuqda insaanka iyo xadgudub bini'aadanimo mar kale Israa'iil inay ka wada Gaza inay gudbinayso dawladaha caalamka qaybo badan oo kamid ah Israa'iil maaltooshka ayaa lagu hayaa waxay noqotay far taagan oo caalamka laga bartay wana waxa ay ku sheegeen dadka arrimaha bariga dhexe aadka u faalooda qasaarihi ka soo gaaray dagaalka Gaza Israa'iil inuu yahay in caalamka ay ku sii ceebowday maalinta ka dambaysa waaya saaxiibada qiimiga lahow qodobada hore markaynu meesha uga gudubno waxa inoo soo socdo dood weyn oo ka taagan gudaha Israa'iil taasoo ah in maaragtay haweeney jaamacad macalinka ah ay soo qortay in Israa'iil ay sidii naazigii Jarmalka ay u baaba'ayaan eber bay noqonayaan bay tiri Israa'iil jiritaankeedu u baaba'aya sabab yaab leh cogsatay oo aan isla eegi doonaa عقدة عبسي وين جودها إسرائيل عاو كتاجر هذا الجان هل هذا أوقف جودها إسرائيل جوجو ده يلاقي الجيل يعني صوبتنا وارك دونا سيدو كلام حنوسله يجي دونا بنزلال سموتريج أو سعودي يكون شيء حوالي دقتين يجين مارك هرسة إنه كي راكنا ولا لها قيمة له ولا لها قيمة له إن أتقرتين ولا حريري دونتان وحين يسوق يعني قيبي وجودا بيه برنامج كنا في نموعة وهبي نمجمعة يسوق ليسو خميسنا يسيب بحيسو جودها إسرائيل وحا كتاجر dood weyn oo ay warbaahinta iyo bahda waxbarashada aad ay uga hadlayaan doodan ayaa la sheegay inay sababtay kadib markii haweeney wax ka barta jaamacad kamida jaamacadaha Israa'iil oo leeyahay Dr. Elena Houston ay qortay qoraal ay ugu magac dartay dhamaadkii Israa'iil sidii ay kooxdii haysan jirtay Jarmalka ay u dhamaatay oo kale xilligii Yuhuudda la dhibaateynay inay u dhamaatay waqtiga Israa'iil ay sheegtay waxayna arrintan ugu sababaysay xadgudubka Israa'iil ay ka geysatay gudaha Gaza sidii Jarmalka kooxdii haysatay ay iyagana dhibaatadaas oo kale ay uga geysteen waxa ay tiri waxa Israa'iil ku xadgudubtay intii uu socday labadii sano dagaalka Gaza ay ku qaaday dhammaan shuruucda caalamiga hadii ahaan lahayd humanitarian law international law dhammaan shuruucda caalamka ay qayb ka ahayd oo dhan waxa ay sheegtay Israa'iil inay burburisay oo ay ku xadgudubtay taasina waxa ay sheegtay cid walba oo la timaado aakhirka inay ku dambayso dariiqa ay sheegtay in uusan caaqibkiisa ama cawaaqibkiisa uusan wanaagsanayn waxa ay sheegtay Israa'iil inay hadda noqotay barmadow oo bulshada caalamka ka tilmaaman waxa ayna sheegtay dagaalkii Israa'iil ay ku qaaday gudaha Gaza ayna ku dhibaataysay kumanaan kun oo reer Falastiina inay ahayd dambi cad oo aan dah saarnayn barteeda Facebook iyo baraha bulshada ay ku daawacday qoraalkaasi Dr. Elena
wixii ka dambeeyay qoraalka professorada ay maanta qortay waxaa durbaba isqabsaday warbaahinta Israa'iil oo bilowday inay ka faallooto hadalkan saameyntiisa iyo macnaha uu sameeyay xaqiiqda wararkaasi waxa iyana arintaasi sidoo kale qaada dhigay oo ka hadlay bahda waxbarashada gudaha Israa'iil ardayda jaamacadaha professorada iyo dadka kale ee arrimaha waxbarashada ku lug leh dooda ilaa waxa ay noqotay doodii ugu saameynta badnayd tan iyo dagaalka Gaza intii uu bilowday ilaa iyo dhamaadkiisa shirkii Sharm el-Sheikh wixii ka dambeeyay waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha ku dhaafno aynu isla eegno qodobka ku saabsan Bezalel Smotrich waxa uu ka dhawaajiyay hadal gudaha Sacuudiga Caraweyn ka dhaliyay kadib markii uu ku tilmaamay dawladda Sacuudiga inay tahay geel raacato waxa uu sheegay hadii Sacuudigu ay doonayaan in ay nooga badashaan xiriir iyaga aan la yeelano in aan aqoonsano dawlad Falastiin ama ay dawlad Falastiin yeelato waxaan leenahay buu yiri saaxiibayaal iska kaxaysta geelina oo iska wadwata geelina iska dhaqda meesha waxba kuma haysaane ma doonayno wax xiriir oo aan idin la yeelano hadalka Smotrich waxa lagu sheegay inuu yahay hadal gaf ku ah dawladda dadka iyo nidaamka Sacuudiga boqortooyadeeda waxa uu ku koobay dawladda Sacuudiga oo dhanba inay tahay dad geel raacata hadalkaas ay qobaradu waxay ku micnayeen inuu ku tilmaamayo Sacuudiga inay tahay dad aan ka warqabin siyaasadda adduunka sida ay wax u socdaan iyo horumarada jira waxa arintaasi ay noqotay mid Sacuudiga ay u qaadanayaan mid si dhaba ay uga falceliyaan Sacuudiga ayaa la sheegay inay tahay dad aad u nacab in loo gafa ama la caayo boqortooyada iyo nidaamka Sacuudiga dawladda Sacuudiga wali kama soo jawaabin hadalka ka soo yeeray Bezalel Smotrich waana hadal cusub oo uu ku dhawaaqay maanta waxaana arintan faahfaahin iyo qoraallo waaweyn ka qoray warbaahinada caalamka oo ay ka mid tahay Associated Press Al Jazeera iyo dhammaan warbaahinta ka soo baxda gudaha Israa'iil waxa shaki ku jirin in boqortooyada Sacuudiga uu warkan gaaray waxa la sugayaa waxa ay kaga falcelin doonaan mar hadii boqortooyadii dhaqaalaha badnayd ee xiriirka Sacuudiga la lahayd haddana dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman uu sii socdo Mareykanka 8 bisha November hadda bilaaban doonto oo ay isbuuc wax la mid ah ka harsan tahay November wuxuu ugu socdaa 8deeda Mareykanka aqalka cad inuu Mareykanka ka dhamaysto heshiiskii Qatar ay Mareykanka siiyeen oo kale kaas oo ah in amniga dalka la damaanad qaado saaxiibaday walaalaha qiimiga leh barnaamijkii fiidnimo aad kala socoteen Kow Somali Media maanta ama caawa inta aynu ku soo xireynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyada ee baahi dushiina ahaado. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.